shirweynahan ayuu ujeedkiisu ahaa mid lagaga hadlayay sidii hay-adda adeega lacagaha yaryar ee Soomaalida loogu bedeli lahaa bangi kadib ballaadhin lagu sameeyay adeega. shirweynahan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin heer deegaan ah oo ugu horeeyo wasiirka xafiiska madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mudane Xasan Maxamed, maamulka hay-adda adeega lacagaha yaryar ee Soomaalida, xubnaha saamileyda ah wakiilka socday bangiga qaranka. shirkan ayaa wajigiisa koobaad lagu dhageystay lana ansixiyay qodobo ay ka mid yihiin dhageysiga warbixinta 9 bilood ee la soo dhaafay geedi socodka ay ugu gudbayso bangi, ansixinta saamiyada la iibsaday qorshaha sanadka soo socda uu ku shaqeyn lahaa aasaasida guddi cusub. intii lagu guda jiray shirkan ay xubnaha saamileyda ah soo jeediyeen su'aalo la xiriira isticmaalka adeega hay'adda, halka ay jawaab celin ka siiyeen mas'uuliyiintu. dhinaca kale waxaa la ansixiyay qodobo kale ah ansixinta in loo guuro bangi, in bangiga loo bixiyo Shabeelle Bank, xarunta bangiga in laga dhigo magaalada Jigjiga, ansixinta damaanadqaadka inuu bangiga Shabeelle uu sii wadi doono adeegyadii ay fulinaysay hay'adda adeega lacagaha yaryar ee Soomaalidu, ansixinta xeroosaadka bangiga. 13 xubnood ayaana loo doortay guddiga hagi doona bangiga, halka markii hore ay ahaayeen 5 qof. wasiirka xafiiska madaxweynaha deegaanka Soomaalida iyo maareeyaha hay'adda adeega lacagaha yaryar ee Soomaalida ayaa gabagabadiina la wadaagay waxyaabihii ka soo baxay. ajendaha koobaad wuxuu ahaa in laga wada hadlo oo la ansixiyo sidii looga guuri lahaa microfinance looguna guuri lahaa banki loogu guuri lahaa. dood dabadeed iyo ka wada hadal iyo isla qaadaa dhig fara badan oo la sameeyey, waxa uu isla qaatay gurigu ama General Assembly-ga iyo shareholdersku ama qolyahan saamileydu in laga guuro Somali microfinance oo loo guuro banki in loo guuro. taas ayaa la go'aamiyey oo la isla qaatay. ajendaha labaad wuxuu ahaa in laga wada hadlo bangiga magaca loo bixinayo. dood dabadeed waxaa la isla qaatay in laga dhigo Shabeelle Bank. magaca bangiga deegaanka Soomaalida uu yeelanayo inuu noqdo Shabeelle Bank inuu noqdo ayaa la isla qaatay oo la go'aamiyey. qodobka saddexaad waxaa laga dooday bangiga halka u noqonaysa ama goobta uu degayo head office-kiisa uu noqonayo. aqlabiyad aad u ballaadhan waxaa ku guuleysatay in looga dhigo head office in looga dhigo oo bangiga madaxiisa uu dego magaalada Jigjiga ee caasimada deegaanka Soomaalida. taas ayaa la go'aamiyey oo uu go'aamiyey General Assembly-ga Shabeelle Bank. waxaa laga dooday oo qodobka afraad ahayd in commitment ama ballanqaad la sameeyo in Shabeelle Bank maadaama loo guuro bangi uu noqday inaan laga tegaynin adeegyadii ay Somali microfinance bixinaysay oo sidii loo sii wadayo adeegii microfinance-ga. taana waxay ahayd requirement ama hawl waajib ah oo National Bank-gu direct ku soo saaray. qodobka shanaad waxa uu ahaa in laga doodo axdiga bangiga lagu aasaasayo iyo xeroosaadka bangiga oo ah Memorandum of Association iyo Article of Association. dood dheer kadib iyo qaadaadhig gurigu waxa uu isla gartay in la ansixiyo iyadoo slight amendment lagu sameeyay qodobada qaarkood qaarna lagu daray ayaa waa si buuxda la isula qaatay oo la ansixiyay xeroosaadkii iyo axdigii bangiga. waxaan leenahay maanta waa maalin cusub, waa maalin horle isbedeladii dhacay ee deegaanka ka dhacay mid kamida oo lagaga guurayo 10 sano kadib markii ay shaqaysay Somali microfinance in banki loo guuro in la go'aansado. waa maalin taariikhiya, laakiin waxaynu sugaynaa inaan helo liisanka ganacsiga ama in la bangiga dhexe ee qaranka uu laysan gareeyo bangigan cusub aynu go'aansanay. intaa ka horna waxaan ku sii shaqaynaynaa liisankii microfinance-gan ku sii shaqaynaynaa intaan sugayno intaan liisan cusub helayno. waxyaalaha laga hadlay waxaa ugu horeeyay maaragtay in reportkii xafiiska maadaama microfinance aan ku shaqaynayna markii hore in reportkiisii muddadii 9 bilood u dambeysay la soo jeediyo la dhageysto, taasoo maaragtay guulo aad muhiim u ah ay ka muuqdeen oo cid walba la dhacday maaragtay dadkii kulan ka soo qayb galay. sidoo kale waxaa laga hadlayay diyaargarowga ilaa hadda aan samaynay maadaama bangi u dalacayno maxaan diyaarsanay oo banginimadii ah iyadana waa la soo jeediyay. progress report fiican oo wanaagsan meel fiican inuu wax marayaan ay ku qanceen macal tiimkii ka socday bangiga qaranka ay maaragtay nala arkeen baa iyadana maaragtay lagu waxeeyay oo lagu soo jeediyay. sidoo kale dadkii sheerasha laga iibiyay cusubaa saamileyda ahayd ee ku soo biiray
microfinance-ga markii lagu daro shararkii in la ansixiyo shararkooda oo maaragtay guddigan shirka guud ee maaragtay saamilaydu ay yeelanayaan lagu ansixiyo oo maaragtay xubinnimadooda iyo soo biiristooda in maaragtay la isla qaato iyaduna ahayd qodob kale waxaa kaloo iyadana la sameeyey in la doorto board cusub xubno cusub oo board ah maaragtay guddigii hogaaminayay bangiga in la diyaariyo oo la doorto xubnahaas oo iyadoo shuruudaha bangiga uu dhigaya la raacayo in tiradoodana la badiyo tayadoodana la badiyo rajada mustaqbalka ayaa ah in bangigu uu laamo kala duwan ku yeelan doono guud ahaan dalka adeegan ayaana noqonaya mid ku shaqayn doona nidaamka bilaa ribada